إلهنا أولاد هاي إلو كوريو أساقنا إلهي ماشان أدونك واسكو سينا ميل كون عكسان أدون كان إنو إلهي نو كلمية إلهي كبريايا سان مالي والبا أجعلينا وجيجيسا أركو بيوم من الأيام ماشا ميل كون عكسان إنان أركي دون موقيسي ونعكسان يكو إندو دوك سنجرا إلهي كبريايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونعكسان داوديال ميل كستود أدونك كجوكتان كسود وهذا برت يوتيوب كان كله ياهي برهان جنال maanta ama caawa barnaamijkeena uu ka duwan yahay kuwii hore aad nooga barateen oo intiisa badan waxaan uga hadli doonaa hodan online oo dib uga soo muuqatay YouTube-ka riyada ay lahayd ka hor dhimashada xaajigeedii Allah u naxariiste daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqatay channelkeena waxaan ka codsanayaa marka hore in aad muuqaalka like saarto mahadsanid muddo ka badan 2 isbuuc ayay ahayd markii uu geeriyooday xaajigii qabay hodan online kaasi oo ku dhintay dalka Ingiriiska dadka Soomaaliyeed intiisa badan waa ay ka warqabeen geerida naxdinta leh ee ku timid xaajigii qabay hodan online waxa uu ku dhintay laguna aasay dalka boqortooyada Ingiriiska muddo laga joogo saacado ayay maanta waxa ay soo dhigtay muuqaal kooban oo intiisa badan ay uga hadlaysay nolosha la soo diristay dhimashadii xaajigeeda hodan online ayaa marka hore dadka Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in ay dhiirigeliyaan maadaama ay maanta sheegtay in ay tahay shimbir hal garab laga jaray sidaas darteedna aan buubi karin hodan online ayaa waxa ay ka dhawaajisay xaajigeedii dhintay inuu ahaa aabaheed ama qof la taliya sidoo kale waxa ay sheegtay in uu inta badan ka caawin jiray marka ay sameynayso muuqaalada hodan online ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay dhimashada xaajigeeda ka hor in ay lahayd riyo aad u fara badan laakiin maanta ay meeshaasi ku burburtay dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay channelkeeda la socdaan sida ay ku sheegtay hadalkeedana waxa ay sheegtay in commentiga ay u tahay dhiirigelin kana ilaaliyaan hadallada gafka ah ee u geysanayaan awal waxa ay tiri waxa iga caawin jiray xaajigeyga markii commentiyo qaldan la ii soo qoro wuxuuna dhihi jiray waxaan oo dhan adiga ka qiimo badan laakiin maanta niyadda ha iga dilinina hodan online ayaa inta badan waxa ay ka hadli jirtay barnaamijyada la xiriira aqoon kororsiga sidoo kale waxa ay soo qaadan jirtay dhacdooyin ama sheekooyin aad u xiiso badan oo aniga laftirkeyga waxaan ka mid ahaa dadka ku xirnaa ee sida wacan u dhageysan jiray daawade adigan haddana daawanaya waxaan ka codsanayaa mar kasta oo muuqaalkeeda ku soo gaaro in dhowr daqiiqo oo waqtigaaga ka mid ah aad u daawatid muuqaalkaas like-na aad saartid sidoo kale halkan caawa waxaan ka ballan qaadayaa in habeen kasta ama maalin kasta haddii ay muuqaal soo dhigto aan barteeda YouTube-ka qaybtiisa community-ga ku share gareyn doono dadka Soomaaliyeed ee ku jira baraha bulshada gaar ahaan dadka isticmaala YouTube-kana waxaan ka codsanayaa sideeda oo kale inay isku xilqaamaan oo mar alla marka ay arkaan muuqaalkeeda ay u share gareeyaan maxaa yeelay waxa ay tiri 4 bilood ee ay sayda ii saaran tahay waxaan ku jiri doonaa gurigeyga ma shaqaysan karo oo waxa igu xiriira 2 ilmo aniga aan u dhalay xaajiga iyo 7 kale oo asaga uu dhalay tirada guud markii la isku daro ayaa waxa ay noqonayaan 9 waxa ayna sheegtay 4 bilood ay guriga ay joogto in ay ku caawiyaan in ay muuqaalada u daawadaan dabcan muuqaalada ay hodan online soo bandhigi jirtay uma baahneen in la buunbuuniyo ama xayisiin loo sameeyo maxaa yeelay qofka waxa ay u soo gudbin jirtay wax qancin jiray haddaba wax yar aan dhageysano qayb ka mid ah codkeeda hodan online ay uga codsanayso dadka Soomaaliyeed in ay ku taageeraan dhiirigelinta muuqaaladeedana ay daawadaan maanta ma dhahayle ma aragtay zooj ayaa iga baxay no zooj igama bixin oo zooj waa la heli karaa wax laga kabsan karo waaye laakiin maanta gurigeyga waxa ka baxay qof casiis ah curadkayga aabihiisa ah gacantayda midig ah saaxiib ah waalid ah advisor ah la taliye ah يعني مو أوجي مال كبلابيو سعدان لو ما أنت وناجي ساكلا of course مسو كوبي كري لكن إلهي وحن كبريا سدان أنا ورالك إلهي نفطه وقاضي الصبا سا أدون كرالي أوجاها إنه إلهي أسجنا آخر ذي سرالي أوجا نقول أي إلهي كبريا مروال بنوح إلهي كبريا ماشان سا وإسكو سجنا وإسكو وينه دا دنيا دا ملك وناكسن إنه إلهي إنه كل مية اللهم آمين يا رب ان رهانت أصحابي قعنت ميدوا إجوان تايلاند إيه كراواي بالاش أنكو بيبايو السجا أيو هاي ريوين والبا أو مانتا أن لهاي هرتم هذا ما يدين ده ريال له ريوين كوا بربورين طبعا
sababtoo guri walba tiirow leh tiirka markuu jabo gurigu waa dumaya dabcan saad ogtihiinbo riyooyinkii oo asaga ii dhisay oo asaga igu yiri niyeyso waad helaysaa wax walba baalashan ku biibaye waa aragtay shimbirtu haday labada baal ay ku biibta mid hadii uu jabo ama ay ka go'do ma biibi karto saad ogtihiinbo shimbir marka maanta labadeedii baal kamida ka go'ay ayaan lamid ahaan dhihi karaa 100% waliba baal lema dhihi kara gacanta midiga i go'an yani si exactly hadii aan u qeexo xaaladayda laakiin alxamdulillah ala kulli xaal maanta ilaahay wuxuu iiga reebay 9 caruur ah oo labadayda ugu yaryar yihiin marka wiilkayga Cabdiraxmaan iyo wiilkayga Maxamed Abshir ba labadooda marka arko waxa ii muuqdo aabahooda waxaan rajeynaa sidoo ilmihiisa u jeclay sidoo axibadiisa iyo qaraabadiisa dhamaan oo u jeclay in ilaahay noogu kulmiyo qof walba adduunka ku jeclay inuu ilaahay aakhira noogu kulmiyo ayaan ilaahay ka baryaaya laakiin waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa nin wax dhalay waa dhuuntay ma dhimanin maanta markaad aragtid wiilkiisa curadka Maxamed Abshir iyo wiilkayga Cabdiraxmaan waa labada qof ee zaa'id aabahood ugu eg so as long as labadaas nool waxa dhigi kara Abshir waa naga dhuuntay ee naga ma dhimanin of course qalbiyadeena waa ku jiri doona inta nolosheena aan ka noolahay ilaahayna waxaan ka baryayaa sidoo jeclay inaan naqdo wuxuu jeclaa inuu qabto oo sameeyo aan ilaahay ka baryaa hada rajadii waa burburtay laakiin ilaahay waxaan ka baryaa biyomnil ayaam inaan يعني وقت دير أو أد وترى بدن أي قادن إنسان إن ككبصدو سنسو شيء بزوج ولا كبصن كراو نين هدو بحنين كلا إيمانا لكن وحلاقة كبصنين وحويان نين 24/7 هيجم كوه جرب كارجة كلها هايو وحول بود أباهن تاني يسوع بده ليس أنا إسكو كاكورسار هكول ولين كجيفو أنا إسكو كي هلاي إن الأركتان هذا تي قصليسة فرح سنة قرح ذبنا كالسوني دو كم وقت وقت بدن قادنا سايني صول لعبته سايدين صو شيء أنا ما أنتو حالم إذا هاي شمبر بارك جبين هاي أو بيبي كرينة أما سه دولي كرينة ساد أفهم تامبو marka idinku waxa idin ka rajeynayaa as ummadda Soomaaliyeed iyo walaalada Soomaaliyeed inaad garabkayga istaagtaan oo please adiga ilaalisan commentiyada negative-ka ah sababtoo shalay markaan comment negative aan arko qofka koowaad uu sheegay asagoo xidhi jiray sasmaaliha waxaas karuga bax qof ka fiican adduunka ma joogo yani ma dhaw yani kaamila ah uu ilaahay no laakiin qof walba qofkiisa uu wanaagsan ayaan ka wadaa waxaan rajeynaa inuu ilaahay agoomadan igu asturo labadayda iyo toddobadaas kalebo oo hooyo wanaagsan aan u wada noqon karo 9 kooga waayo toddobadaas kale oo marxuunku ka tagaybo ayagaba agoomo waaye oo hooyadoodii labaada ahay hooyo kalena waa noo joogtaa oo toddobadaas kale noo dhashay maama farxiyo lado intan ayadana aan ka salaamay 114 on ilaahayna uga baryaayo inuu cimri dheer iyo cibaado suuban ilaahay noo siiyo oo ay noo ahaato booskii aaba joogay booskii aabaheena Abshir joogay zawjkayga kaliya ma ahayn ninkayga aabo yahay saaxiib uu yahay wax walba uu yahay boosko Abshir joogay inuu ilaahay ayadana saanta noogu dheeray ilaahay ka baryaaya Allahumma aamin ya rab idinkane caruurteenu agoomo ma ahan waayo idinka ummadda Soomaaliyeed ayaa hooyo iyo aabo iyo adeer iyo abti iyo habriir iyo eedaba u ah waxaan aad uga mahad celinaya dhammaan walaaladii ila damqatay ee xanuunka ila dareentay oo koow ay ka yihiin walaalada aan isku majaalkana ama isku hawsha aan ahay ee YouTubers ka ugu hormarinayo TikToker hadihin Instagramers hadihin Snapchat hadihin Facebook page-yada hadihin been ma sheegay yani marka arkay ducada sida khalqiga ummadda Nabi Maxamed ee ugu duceynayeen marxuunkaasi ayaa qalbigu ii qaboobay oo ii dagay on ogaaday anooba awal ogaay haddana sii ogaaday inuu qofkaasi yahay qof ahlul khayr ah sida ay diinteenu qabtaan qofka saddexda su'aalood haduu ilaahay mootiyo oo maalin jimcana eelka la dhigo qofkaasi soo rasuulkeena calayhi afdal kuna saliya khayrka aan qaadan calayhi afdal salaatu salaam qofkaasi ilaahay cadaabul qabri waa kana jeeyay soo waxaan rajeynayaa inuu ilaahay عند السؤال وثبتي وإلهي نوغا ديغا قبريغيس روضة من رياض الجنة لبدان تضبداس كلي هويدو اي marka laga reebo maanta labadaan agoomo waayo ayaga wali yar waxaan rajeynaa inuu ilaahay igu asturo
koriinshahooda uuna ilaahay igaga dhigin ilmo ma aragtay aan ku tabco koriinshahooda uu ilaahay iga dhiso aabahood baariga u ahay waayo aaba baariyaa dhalay 9kaas adduunka kaga tagay aaba baariyo ilaahay nasiib u siiyay soo aabahood baariga u ahaa inuu ilaahayna ayaga ka dhigo baari awlaad baari ah waayo ilaahay subxaana qaadir wuxuu yiri waxaan ka xishoodaa inaan ku cadaabo taxta al-ardiga cabdigayga oo waladun saalixun yad'u lahu fawqa al-ard يعني adoonkaygan ka xishooda inaan carada hoosteeda ku cadaabo asagoo walad saalix ah adduunka korkiisa oo ugu duceynayo dhahayo rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira waxa ilaahay ka barya 9kaas inuu ilaahay ka dhigo kuwii waalidkooda khayr ku xusa oo u duceeya allahumma aamin ya rab daawada intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii aan uga hadlaynay hodan online oo fariin degdeg ah u dirsatay dhammaan shacabka Soomaaliyeed daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalka like saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka muuqaalkan waxa inii soo diyaariyay anigoo Burhaan Cali ah Burhaan Janaalna waa ka daawanayseen nabadgelyo